barnaamijka ku cel waxaa baratay dhulkaaga hooyo waxaa loogu talagalay inay dhallinyarada waxbaranaysa iyo kuwa waxbartay ay ku celiyaan in dalkooda si loo dhiso dal leh barwaaqo horumar iyo nabad lana mid ah dalalka ka jira dunida aynu goobjooga ku nahay maanta barnaamijka ku cel waxaa baratay dhulkaaga hooyo wuxuu iftiiminayaa in cid kasta oo leh aqoon ay si bilaasha waddankeeda dib ugu celiso si loo helo jiil waddanka dhisa maanta waxaan jirsanay sanad waxaan nahay kuwo la yimid fikir xilli loo baahnaa inay dhalintu noqdaanin kuwo wax abuura oo hurdada ka kaca aniga waxaan ka mid ahay ardaydii ugu horeysay oo wax ka baratay oo koorsooyin gaagaaban ka qaadatay shahaadooyin badana ka qaadatay barnaamijka ku celi waxaa baratay dhulkaaga hooyo haddana waxaan ka mid ahay xubin iyaga ka mid ah oo kala shaqeeya howlo badan oo ay ka qabtaan geyigeena puntland inageedigan maantan ahay waa midaan jabini waa mid magacaybiyo cuskaday midigta dorkiisa waa mid mawjaduu doonaya rayba maarisiyo midda hadalka meeshaan ku wado waan mataalayay masiirkii dalkan baanihiyo maanta dabadhidi dhalin magaca soomaaliyeed mujiyanay dhulka hooyo waa muuran aan lagana marnayn macna inaanu yeelaa bulshay waa mataal fudude maxaa idin hortagnaa intay umado gaadheen ma doonayaa qof inin ka mid ah inuu dalkiisa maanta uga tago taariikh halkii uu samayn lahaa taariikh nafsiyadeed dhalinyaro waxaan idin dhiirigelinayaa dhammaantiin inaad noqotaanin kuwa qaranka u istaaga waxaynu noqon doonaa insha allah biidnillahi kariim kuwa dhisa maandeed si aynu dib ugu soo laabano marxaladda aynu lahayn dhalinyaro waxaynu nahay geesiyaasha maanta ma nihin kuwa biri laakiin waxaynu nahay kuwa maanta laakiin aan aruurino fikirkeena iskuna badbaadino sida aan u qismi lahayn mar kale waxaan idinkaga tegayaa dhammaantiin inaan noqono kuwo u dagaalama qarankeenna innagoo xag maskax iyo xaq aqoon isticmaalayna maanta dalkeennu wuxuu u baahan yahay badbaado runtii waa qayrooda waxaan uga mahad celinaya dhalinyarada isku taxallujisay inay dadkooda ku laabtaan inay dadkooda waxbaraan waxaan rabaa inaan u mahad celiyo saaxiibka cabsaaq wadan iyo kooxda maxaa ku dhahay tahay ku celiyay waxaa barata dalkaaga hooyo runtii cabsaaq wuxuu ka mid ahaa dhalinyaradii dalka dibadiisa wax ka soo bartay iyo asxaabtiisii la socotay markuu halka yimi wuxuu ahaa shaksiyaadka khaaska ah ee aan aadka isugu dhaweyn waxaa jira dhalinyaro isaga la socday haybna ay ka soo horreeyeen oo dalka dibadiisa wax ku soo bartay run ahaantii waxaan xasuustaa oo aan been ahayn cabsaaq si khaasa isu waraysanay waxaan ku yidhi saaxiib wax shaqaa weli meesha ma eegu yidhi hay maxaa ku qorshaysan madow saaxiib qorshayaasha noocaasaan wadaabi waxaan rabaabi waxaan aan soo bartay qof walba wuxuu soo bartay shaqu ku raadinaya inuu lacag ku helo laakiin hal qof oo ma jiro ku fakaraya waxaanu soo bartay inuu ku celiyo aqoontan uu soo bartay uga faa'iiday dadkiisii oo ka baahan 17 waxaan ugu magac dari doonaa sanadkii dhalinyarada maadaama ay dhalinyaradii Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay sixil qaantay oo ay garatay doorka ay ku leeyihiin bulshada sanadadii hore waxaan wax ka sugi jirnay dawladda wasaaradaha dadka waaweyn ganacsatada dadkaas oo dhan baa wax laga sugi jiro iyagu baa la eegi jiray dadka dhalinyarada ahi waxay ahaayeen dad ku hoos dulman iyaga oo aan arkin iyagu awoodooda laakiin waa alxamdulillaah hadday maanta arkeen awoodoodii oo dhalinyarada oo dhan u diyaar garoobeen inay iyagu awoodooda isu muujiyaan oo istusaan dhalinyaro ma ogtihiin dadka ugu qaalisan inaad tihiin mararka qaarka oo kale waxaa dhacda mas-uuliyiinta markaa barnaamijku casumaysa oo kale inay kaa gaabsadaaneen ama waxyaalaha awoodadu ay u arkaaneen waxaan micno lahayn laakiin ma ogtihiin dhalinyaro inaad tihiin kuwa qiimaha ugu sarreeya leh waxaad tihiin kuwa xaggayga leh qiimaha ugu sarreeya waxaana u mahad celinayaa dhammaan cid kasta oo ka soo qayb gashay maanta oo goobtan quruxda badan fadhida dhalinyaro waxbartay baad tihiin mustaqbalka soo ifayaad tihiin kuwa maanta loo baahan yahay baad tihiin waa idiin sheegayaa maalin aan fogeyn waxaa imaan doonta maanta uma jeedaan dad ka socda dawladda ama maaha mas-uuliyiin socda laakiin maalin waxaa imaan doonta howlkaasi buuxsami doono iyagoo cod idinka raba ama talin ka raba waa imaanaysa wallaahi sida maalintaas ay ugu muuqata inay iman doonto waayo xoog baa tihiin loo baahan yahay wax walba adiin qabanaynaa haddaan ur haweennahay haddaan xaafad nahay haddaan muxuu ahayo ganacsato nahay haddaan wax walba nahay hooyooyinka invitationkeena hawshaasaan qabanaynaa dhahay saasaan idin garab taagnaanayna yaan laydin kala qaybin wallaahi rag baa jira
oranaya wariyaha barnaamijka wata cabdisaaq wadani oo waa reer hadduusan babligu orana waxa weeye wuxuu oranayaa bahal marka qabiilka bahalka la yidhaahdo iyo qoysqoyska iyo qabiil shaqaad ku midoodeen darilaha baad u midoodeen baa ku soco ha ka yeelina in inta la soo dhex galo oo sunlad suus iyo balaa meelba suus baa ku jira ka foojinaada taas wallahi isku duubni wax lagu gaaraa inaa wax lagu gaarin qabiil iyo qoloqolo iyo kankaas waa maalin maalmaha ka mida oo aan fogeyn puntland doorasha ka soo socota qaar badan oo waxaa soo socdaan puntland baa arag iyo waxa laga nool yahayba aan ogeyn war ninka lacag intuu soo qaado bilaaha ku dhaashay lacag intuu soo qaado xildhibaanada iibsanaya marka horeysa xildhibaanku wuxuu kusoo baxaya lacag buu kusoo baxaya marka lacag buu ku jiro ama deyna ama uu ku jiro kii wax dooranayay maaha tartamayna lacag buu la soo xaadiraya wuxuu leeyahay xildhibaanada aan gadanaya nin ku soo baxay laaluush ama lacag ku soo baxay waxa aan ka fili karnaa maxay tahay waxba kama fili waa halka aan leeyahay musuq maasuqa aynu la dagaalano waxa weeye qofka aynu dooranayno ama u dhimayno mas-uuliyadda waa inuu yahay qof aan tuujinay waa inuu yahay qof aan ku aamini karna xilka uu doono mataanimo lacag baan wataa dad baan gadanayaa haddaa gelatid maxaan ka filaya hadhow gabu horaa deyntii uu kusoo baxay buu rabaa isaguna hadhow helo waa celinayaa retain deyn buu kusoo baxay marka waa ku dheeraaday waxaan kusoo gaabinayaa idinkuna bogaadinayaa inaan laydin kala qaybin inaad isku duubnaataan inaad himilada aad leedihiin oo ah inaad dalkiina iyo dadkiina horumar gaarsiisaan aad ka dhabaysaan asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu Puntland Post warar sugan iyo warbixino dheelitiran